السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعلي عامر حسن كسو دوادا مركل أي مقال عصب وحان كل وداقي دونا طبعا عادو وكسابسن cuntada kuwaasoo ah negative ama aan wanaagsaneyn una fiicnayn qofka caadooyinkan sameeyo. balse marka hore intaan muuqaalka kula wadaagin waxaan kaa codsanayaa inaad youtube-ka subscribe inoo saarto haddii aad naga daawanayso. haddii aad facebook inaga daawanaysana waxaan kaa codsanayaa inaad follow inoo soo dhahdo, videogana inoo share garayso. insha allah soo dhawaada mar kale. 10 qorshe oo ku saabsan qorshe yacni caadooyin qaldan oo negative ah kuwaasoo ay dadku aad u sameeyaan kuna saabsan cuntooyinka. caadooyinkaasna waxay ka yimaadaan waxyaabo ay dadku iska dhaadhiciyeen badankood ama waxyaabo ay yacni ka raadiyaan wax dheeraad ah. qorshooyinka kolley waxa u muhiimsan waxyaabaha la xiriiro mar walbo in qofku uu ku dadaalayo uu ka raadinayo awood ama energy. marka waan gudagalaynaa qodobka ugu horeeya insha allahu tacaala wuxuu yahay qorsheyn ama iska dhaadhicin cunto xumi. qofka inuu iska dhaadhiciyo ama uu qorsheyso marka hore intuusan cuntada cuninbo cunto xumi inuu qabo, inuu iska dhaadhiciyo oo cunto uusan cuni karin taasoo niyadiisa sii dilayso. badanaa dadku waxay sameeyaan waxay marka horeba naftooda u sheegaan inay kaniiniyaal qaataan ama ay qaataan sharoobooyin si ay cunto badan u cunaan. cunto xumi ayuu qofka marka niyadda gashanaa oo iska dhaadhicinaa taasoo yacni caado xun ah aanan u fiicnayn qofka baniaadamka inuu niyadiisa sii geliyo. qodobka labaad wuxuu yahay cunto badan oo laga cuno maqaayadaha. qofka markuu caado ka dhigto mar walba inuu cunto badan maqaaxiyaha ka cuno oo maqaaxiyihii yacni daa'imo cuntooyinkoodiina uu barto waxay ku noqonaysaa caado xun oo la xiriirto wax cunidiisa. mar walbana wuxuu ku xirnaanayaa qof maqaaxiyaha cuntooyinkiisa ku tiirsan hadduu noqdo waxa kusoo degdegayso inay yacni caadadaas xun oo dabeecad ka dhigto. qodobka saddexaad wuxuu yahay cunto ama cunidda cuntooyin la xiriiro sokorta ama cuntooyin sokorta ay ku badan yihiin qofka inuu cuno oo uu daa'imo. waa sidaan wada ognahay cuntooyinka badanaa waddankeena laga isticmaalo ama xataa adduunyada kale waxay u badan yihiin cuntooyin sokor ay ka buuxdo. bulshooyinkana way kasii guurayaan cuntooyinkii la xiriiray cuntooyinka dalaga ama cuntooyinka loo yaqaano fiberka oo la beero ama beeraha si ay uga soo baxaan loo isticmaalo aan warshado soo marin. marka cuntooyinka aan warshadaha soo marin ee waddanka mar walba waxay u wanaagsan yihiin in qofkii uu dheefshiidkiisa iyo jirkiisa quruxdiisa ka qayb qaataan. marka in qofkii marka uu ku dadaalo cuntooyinka sokorta uu ku badan tahay waxaa u wacan inuu cuno cuntooyinka aan dalaga ahayn. qodobka afraad wuxuu yahay wax cunid maskax beel ama maskax la-aan inuu qofku wax u cuno ama inuu qofkii cunto mar walbo arko iska cuno isagoon gaajasnayn. halkii la rabay inuu markay gaajo qabato cuntada u cuno wuxuu iska cunayaa wax kasta uu arko. taas ayuu ka dhigayaa inuu daa'imo oo badiyo. qodobka shanaad wuxuu yahay inaad keligaa wax cunto, inaadan dadka wax la cunin waxay ka qayb qaadanaysaa caadooyinka xunxun ee aad leedahay. marka aad wax cunid samaynayso inaad keligaa wax cunto, inaadan dadka wax la cunin oo keligaa aad iska dhaadhiciso inaad dhargeyso ama aad wax cunayso waa mid ka mid a caadooyinka xunxun ee qofka uu cuntada xaggeeda ka yeelan karo. qodobka lixaad wuxuu yahay wax cunista xilliga degdega. markaad degdegsantaha ama aad shaqo u socoto ama aad kubad u socoto ama aad arrimo kale u socoto inaad si degdeg wax u cunto waa mid ka mid a caadooyinka xunxun ee wax cunidda. qodobka toddobaad wuxuu yahay cunto cunis haddii aad rabto inaad energy qaadato, inaad awood yeelato markii aad rabto saa'id inaad cunto sida markaad kubadda u socoto, markaad jiimka u socoto inaad cunto. qodobka siddeed waxay tahay cunto cunidda cuntooyinka la warshadeeyey inaad cunto. markaad rabto inaad cunno haddii aad cuntadaada inta ugu badan ka dhigto cuntooyinka la warshadeeyey waxay ka qayb qaadanaysaa caadooyinka xunxun ee xagga cuntada aad yeelanayso awoodda xagga cuntada. marka cuntooyinka la warshadeeyey mar walba inaad daa'intana waa laga fiican yahay, waa caado xun oo xagga cuntada ah. qodobka sagaalaad wuxuu yahay cunidda cuntooyinka dareeraha ee lagu daray kalarka kuwaasoo ka qayb qaadanayo in midab cuntada ay yeelato oo lasii qurqurxiyo. cuntada marka midab lagu daro marka oo la kalariyo waxay ka qayb qaadanaysaa cuntooyinka yacni negative-ka ama dheefshiidkaaga saameynta xun ku yeelan karo.
waxayna noqonaysaa mid ka mid ah caadooyinka xunxun ee xagga cuntada aad leedahay. Qodobka tobnaad aan kusoo gabagabaynaa wuxuu yahay inaadan cunin cunto kugu filan maalinka oo dhan. Inaad wax un hal mar inta afka geliso aad ka baxdo cunto kugu filan aad cunin waa mid ka mid ah caadooyinka xunxun ee kugu soo degdegayo ee xagga cuntada ah. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Fadlan haddii aad naga daawanayso YouTube-ka subscribe inoo saar, haddii aad Facebook naga daawanaysana follow na soo dheh, muuqaalkana sii faafi oo share dheh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.